xukuumadda federaalka Soomaaliya sheegtay in ay guddi u saareyso muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku xiran xabsiyada dalalka dibadda sida faahinta warkaan magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto halka Somali Channel uga soo warama afayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Ridwaan Xaaji Cabdiwali Shirjirayd oo qabtay waxa uu kaga warbixiyay kulanka golaha wasiirada uu sheegay in ugu horeyn looga hadlay xaaladda guud ee dalka gaar ahaan horumar uu sheegay in laga gaaray dhanka ammaanka xaaladda amniga dalka Soomaaliya aad iyo aad ay u wanaagsaneyd toddobaadkii la soo dhaafay si weyn ayay isugu hawleen guud ahaan wasaaradaha ay khusayso in amniga ay wax ka qabtaan maadaama maalmo muhiim ah lagu jiray oo dadku ay u dabaaldegayeen ciidda ama munaasabadda Ciidul Adha waxaa jiray guddi heer qaran ah oo loo saaray inay sugaan ama ay hubiyaan amniga dalka guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee Muqdisho guddigaasna waxyaabo lagu amaani karaa ay qabteen runtii maalmihii la soo dhaafay iyo maanta oo wali dadku ay u dabaaldegayaan ciidda afayeenka xukuumadda ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay guddi u saari doonto siideynta maxaabiista ku xirxiran qaar ka mid ah xabsiyada wadamada caalamka waxa kaloo iyana ay golaha wasiiradu aad iyo aad uga hadleen sidii loo siideyn lahaa in badan oo ka mid ah maxaabiista Soomaaliyeed oo ku sugan xerooyin ku yaala dalalka India, Seychelles, Libya, Ethiopia, Kenya, Yemen iyo طبعا sidii xuquuqda ay leeyihiin dadka Soomaaliyeed maxaabiista sidii loo sii deyn lahaa waxaana jira waxyaabo fara badan oo horumar ah oo laga gaaray in qaar ka mid ah maxaabiistaas la sii daayo waxa kale oo iyana jirta in guddi gaar ah wasaaradda arrimaha dibadda ay u sameyn doonto sidii xuquuqda iyo maxaabiista dadka Soomaaliyeed intaba markasta indhaha loogu hayn lahaa Cabdulqaadir Cali Xuseen Koronto Somali Channel magaalada Muqdisho